qofaan imaanin loogama sheekay karo waxa meeshan ka dhacay waxa ka dhacday dhibaato aad u baaxad weyn waxaan leenahay inta dhimatan Allah u naxariisto inta dhaawacantayna Allah caafiyo inta hantideedu ku weysan Ilaahay bedel khayr raasiyaan leenahay nimankan cadawga argagixisada ee arxanka daranne runtii ummadda Soomaaliyeed waxa ay la maagan yihiin ama ay ku haayeen ay cadayn u tahay shacab looma turin hanti looma turin cid la dhaafay ma jirto dhulka la jaray ereyadan dhan wixii dukaan ku yeelay iyo wixii ganacsi ku yeelana waa baaba'een naf iyo maalba meeshan waa lagu waayay waxaan leenahay dadka hantidooda ku waayana Ilaahay wax khayr haysiyo inta dhimatan Allah u naxariisto inta dhaawacantana Allah caafiyo oo ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dhibaatada meeshan ka dhacday cid kasta ee gacan ka geysan karto inay ka geysato dad danyara ee ganacsi yar ku haayay ayaa naftoodina ku waayay hantidoodina ku waayay cid kasta ee gacan ka geysan karta ka geysato sidii loogu soo gurma kara ha loogu soo gurmadaan leenahay runtii meesha dhibaatada ka dhacday waxaan dhihi karnaa waa dhibaato qaran waa dhibka weyn heer state ee waxaan dhihi karnaa dhibaatada meesha taalo waa in qaran ahaan loogu soo gurmado cid kasta ee gacan ka geysan kartana ay gacan ka geysato waxaa baaba'ay guud ahaan adeegii iyo goobihii loogu adeegayay ummadda Hirshabeelle xafiismaka dawladda guud ahaan way baaba'een iyo hantidii shacabka ee ereyada ka dhaweedba way baaba'een cid kasta ee gacan ka geysan karto ha ka geysato waxaan rabaa al-shabaab way jabeen nama niyad jibi doonaan insha Allah hadii Ilaahay raalli ka noqdo dalkana waa laga xureynayaa waa tir rafashada ugu dambeysay raftuu haayaan rafashada ugu dambeysay raftuu haayaan neefka marka la bireeyo markuu ruux baxayo rafashada ugu dambeysay markuu rafaayo inta kaantood awoodo oo ma aragtay mid hore ka weyn oo la imaana waa nafbaxaya nimankan waxay joogaan rafashada ugu dambeysay looga heerima insha Allah hadii Ilaahay raalli ka noqdo waxaan leenahay way jabeen waana la dhameystiraa hadii Ilaahay raalli ka noqdo cadawgan aan naxayna inta dhiman aan gacan midaysan iyo tala midaysan iyo tawfiiq aan ku dhameystirno waa jabeene aan israacsiina hadii Ilaahay raalli ka noqdo cid kasta ee gacan ka geysan karto dhibaatada ka dhacday beled weynana waxaan leenahay gacan ka geyso annaguna waa idin soo dhaweey doonaa insha Allah hadii Ilaahay raalli ka noqdo naftirkeena gacmo isma saara doonaa waxaan qaban karno waa qaban doonaa cid kasta waxna la qabaysana waa soo dhaweyneynaa ballantaynuna waa shabaabon dadka dalka ka xureyno culeyskoodana aan dadka iyo deegaanka ka hor qaadna hadii Ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad u mahadsantihiin